السلام عليكم وادي السلامي dhammaantiin waxaan rajaynayaa inaad caafimaad qabtaan meesha aad joogtaanba waxaan ka hadlaynaa marka sida maqlayseen Soomaali khudbadii Joe Biden waa maqashaa maleynaa okay haddii aad Yurub joogtid wali jaanis haysataa anoo ku sheeganayo waa idin sheegay dhammaantiin haddaad Yurub joogtaan jaanis haysataan wuxuu yahay Biden horta inuu Vladimir Putin أو لغة أوجلية يوكرين وكوجل يعني دقيقة step ويلا السعوديين دجال كودا يحال كلا كلام رأيه ويلا السعوديين وجددوا ده بوتين إسقى حق قالوا إسقى خطرت إسقى ده لما خمارية دورته وأوجي هاي هذول دجال كقالوا إنه جفا إذا سنة ونقبتين لصارايو ونقبتين كلا أدق يعني ما نب مركو جزيرة دقيقة من أبوكم أفريقيا تمنكي قبسنا ونقبتين على صاري لما أنتوا إسقى بابين هذانا كوكلا إلا صاري وأوجي هاي خطرت ده لكن وحكوا حسابته معايا haddii cunaqabateen lagu saaro de wax iska caadi waa dhaqaalo yani baahi waa noolaan kartaa shacabka ayuu taala sida North Korea oo kale oo Kim Jong Un way noolaan kartaa dadka ayuu taala kii dhimanay laakiin haddii Ukraine ay NATO ku biirto raashin nolol uma taalo yani badan madow waa laga xiranaya waa lagu wareegsan marka waxay noqonaysaa barafkaas ay ku dhex jirtaa oo ay saaran tahay waxay u carari kartaa kaliya dhanka China oo ayadana Japan ay laga xigo Mareykanka ka xigo marka Putin laba option oo labadaba khatar ah wuxuu doortay in uu dagaal galo ونقبتين وحي ربها لسوداي تهذا كله جو بادن بلنقاد يعني وحو سيب بلمينايا بوتين وحو ليه نيو عدالة دولة كلا دا سو قشي أنا قد قالان قلايا وحي كدي قانتاهي وحال إنو يهي مشروعا ما دام يوكرين آد قشي صوصو عادنا يعني ميل كلا قل سيدي كل هذي أدلوف هيلر مقعي سنت اللي شاك وحوغا ويحيران مر مد فيديو بحيرين مركا سيدي نازيين تو كلا أي الربان هدنا إني صوصي كيان markuu soo sikado wadan kale oo Romania oo kale Lithuania oo kale u dhaho Belarus oo kale qabsan u dhaho oo yani Putin haduu xanaaqsan yahay sida Hitler uu xanaaqsana oo kale ay ka xanaajiyeen waa way juqjuqeeyeen Mareykankan wax lagu yaqaano waa yani ninka markuu xoogeysto wuxuu isku dayaa inuu juqjuqeeyo oo isaga isku dharbaaxo markuu isaga awoodiisa baabi'iyo xanaaqo dadka madaxyada ka guro oo lagu goobto yani wuxuu rabaa Mareykan kaligiisa inuu weeraro mar rabo dagaalka xataa inuu galo mar rabo laakiin wuxuu rabaa isaga oo wakiiladiisa inay dagaalka galaan oo ay ku baaba'aan markay baaba'ana isagu noqdo boqorkii kaynta yani boqorkii adduunyada boqor ilaaha ka adduunyada laakiin wuxuu rabaa inuu ummad meesha ka maamusto marka dadka Yurub joogo ninkan uu ballaminaa weydin soo socda ciidamadan aad arkaysaa baar ciidamo dowladda Russia ay soo dirtay ma ahan ciidan Ukraine oo difaac ku jira balse waa ciidanka NATO gaar ahaan kuwa Ingiriiska oo lagu soo daabulayo wadanka Estonia sida muuqata dowladaha ku midaysan ururka NATO waxay isku diyaarinayaan dagaal ay markaasi ka geystaan ciidankan lagama soo qaadin masaafadaasi fog si beenbeena kuma imaanin marka feejignaan fara badan iyo taxadar fara badan ayaan anagu leeyahay dadka Soomaaliyeed ku dhaqan Yurub inay sameeyaan ciidankan dabaabaadka aad arkaysaan waa ciidanka Ingiriiska hadda ay marayaan sakinada aad arkaysid ay ciidankan Estonia imaadeen dowlado fara badan oo Canada ku jirto America ku jiro Jarmalka ku jiro ay horta ciidamo fara badan soo dhoobay taana waxaad fahmi kartaa xaalad wanaagsan maaha marka waxaan leeyahay taxadar fara badan sameeya jawiga iyo waqtiga la socda anagana insha Allah taala intaan soo jeedno waan la socodsineynaa xaalad wanaagsan maaha xaaladda hal maray farax ka bixi kartaa hal khalad oo ay dowlad sameyso oo buu ku xiran yahay in uu khalad ka dhaco ugu dagaalkii labaad 4 maalin markuu dagaalka dhex maray Jarmalka iyo dowladii maxaa la yiraahdaa Poland ay ku soo biireen wali 4 maalin isla ma gaarin 2 maalin la maraya iska jira marka